الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف والبو مسلم وإلهي سبحانه وتعالى قارسيي عافماد يا صحة كقارسيي وإنكم مشغول ضاعد إلهي سبحانه وتعالى خديت أنت أنا قارن رمضان سيدنا سودوينا waxaa jirta duruuqo fara badan dadka ku soo dhaweeyaan laakiin duruuqa ugu wanaaga badan ee bisha barakaysan ee kariimka lagu soo dhaweyn karo waxa habbo qofka muslimka ah inuusan iska dayicin muusimka daacadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa inuu ka mid noqdaa kuwa u tartamayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa. Allah wuxuu yiri fi dhalika falyatanafasil mutanafisun kuwa tartamaya ha soo tartamaan meesha Ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaag iyo khayrka iyo jannada ha soo tartamaan. qofka muslimka waa inuu ku dadaalo istiqbaalu Ramadaan sida uu soo dhaweyn lahaa bisha muusimka barakaysan khayrka faraha badan wadato sida uu soo dhaweyn lahaa waliba dariiqa wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa hali ka yihiin ku soo dhaweyn lahaa. dariiqa ugu horeeya marayna waxay tahay walaalayaal in Ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan aynu barinaa si uu noo gaarsiiyo bisha barakaysan annagoo caafimaad iyo sixo haysano annagoo nashaad u leh cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii siyaam tahay haddii istaag tahay haddii digri tahay inuu ku soo dhaweynaa. Anas bin Malik radiyallahu anhu wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa markii Rajab la gaaro ayuu leeyahay Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ilaahu noo barakay bisha Rajab iyo Sha'ban lana gaarsiiyo bisha barakaysan Ramadan. ضايفوينك معروف كاي لغرنا سلفك صالحها إلهي سبحانه وتعالى وحي ويديسن جرين إنو غارسيا بشا بركيسن دعادنا وحيد إله نغارسي نغانا أقبل دعادنا أيهد وحا حبون غفة مسلم كامركي بشا رمضان أي دلتا أي عرتا إن إلهي سبحانه وتعالى أبريا أو إراده الله أكبر اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضى ربي وربك الله. الله أكبر عبا وين إلهي وبشا وحان ودلسا أمان يا إيمان إنما ديري إسلام نمو إله نوافجي وحد جعش رالك تاه ربي بشي ربي قادي أنا ربي وإلهي سبحانه وتعالى. طريق الله بعد غفك مسلم قال غير وحي تهي إن إلهي سبحانه وتعالى وكم هذه الحمد لله إرادة كشكريا حمد انتي شرنت الله كلا تهي أفكر وإن إلهي سبحانه وتعالى وكم هذه سا dhaqaaga ficilkaaga iyo wax cibaadaha qabaysan shukr ay naqanaysaa Ilaahay ku gaarsiiyay bisha barakaysan waa inaan afka ugu mahadinaa Ilaahayna subhanahu wa ta'ala ku shukrina. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitab al-adkar wuxuu ku saaray inuu yiri waxaad ogaataa inay sunno tahay qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcad daahira siiyay ama Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaato ka reebay waa inuu sujuud la dhaca oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sujuud shukri la yiraahdo إلهي سبحانه وتعالى كو أمانه بما هو أهله يهي marka nimcada ugu weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala doonkiisa waafajiyo cibaadada siiba bisha Ramadaan inay u gashaa qofka muslimka ah asigoo caafimaadkiisu taam yahay nimco weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay haatay waxa waajib ku qofka muslimka oo mutaystay bisha barakaysan oo la kulmay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku shukriya Ilaahay amaana nimcada weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku galadaystay. الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. طريقة سدحاد لغربة وحي تاقفك مسلم إنه فرحا بشا كفرحا وإنه أبشار يددك ولاله سيد النبي عليه الصلاة والسلام كسبناتي وحوها من صحابتي سأبشار بشا سكريتان كذا وحولي جري جاءكم شهر رمضان وحايدي من بشي بركة شهر رمضان شهر مبارك وبالبركيسن كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم. بشان بركيسن إلهي سبحانه وتعالى وحكرك لواجب ودقي إلى صنتان وبالألبابها الجنة سدد الباب الفراية تدود الباب النار تان الحراية. سلف صالحة ذاتك هنهرتي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يتابعين تي ذاتك ولاقي كل راعي بشان ويسكت هني يجري ولكم فرح جرين قدوم كذا سوقلتان كذا فرح كون ميجرو بس أخبار لسكو شيء رمضان موزمك خيرك يا رحمة إن سكو بشارة لسكو شيء. طريقة أفراد وفق مسلم كأنه مرة روا وحي تهي إنه عزيمة جارو إنه سن كفاية يستبشع إنه عزيمة جارو سو بشع وفايدة سلها
in fara badan dadka waan ka xumahay waxay ku mashquulaan waxyaabo adduunkooda iyo diintoodaba aan macno weyn u lahayn waxyaabo daqiiqa oo umuur dunya ay ku mashquulaan laakiin in yar ayaa waxay ku mashquulaan umuur aakhira si ay maalintii oo dhan noloshooda ay ugu faa'iideysan lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala yabohiisa naftoodana ka dahir lahayn xumaatada oo idin saacad walbana cibaado iyo daaco ku jiraan halka muslimiinta qaarkood barnaamijyo ay sameeyaan si ay uga faa'iideystaan habeenkii iyo maalinkii ramadaanka daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la sheegay imaamu dahabi raximahullahu tacaala ninka caalimka ayaa baqdaad yimid bisha ramadaan ugu dhalatay habeenkiina dadka ayuu taraawiixda la dukanayay markii dadka kala tagaan taraawiixda ma uusan joojin jirnay habeenka oo dhan cibaado ayuu wadi jiray markuu waaga baryo salaada subax dukadana tacliin ayuu u fadhiisan jiray ilaa ay qoraxda ka dhacdo marka waa barnaamij amba waxyaabo lagu qaniimeysan karo habeenkii iyo maalinka ramadaanka daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dariiqa shaqada qofka muslimka inuu marana waxay tahay inuu go'aansadaa oo go'aan adag la yimaada oo run ah inuu waqtigiisa iyo awqaadiisa ka buuxiyo acmaal saalixaad ah faman sadaqa allahu sadaqa qofkii ilaahay u run sheegaa ilaahayna waa u run sheegaa waacaanahu calaa daacatihi wayasara lahu sabiila alkhayr ilaahayna ugu kaalmeen daacadiisa waa la fududaan waddooyinka khayrka ah qaala lahu caza wajal ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم حتى إلهي سبحانه وتعالى أشكر شيء لهاين أرنك يا أقر بالنا لهذا طريقة لحاد قفك مسلم كهرباء إنه وفاء ديستو وإنه علم أولي هاي وأحكام رمضان كعلم يقول أولي هاي وأي قفك مؤمن كوحاكو واجب إلهي عابدا إنه سنكو عابد على علم الآن وإنه كعابد إلهي سبحانه وتعالى على علم وإنه كعابدا لو من عذر داراي قفك جاهل كي واجبات الله سبحانه وتعالى وكو واجب يلا دومن كيسا صوم كنا وحكم يا وحي ابا الله سبحانه وتعالى كو واجب دومن كيسا قفك مسلم كوحا حبون انه برتا مسائل الصوم واحكامه صوم كمسائل كيسا يا احكام كيسا انتو صوم كايمان كهر سيئو نقطا صوم كيسا صوم صحيحه او مقبول الله سبحانه وتعالى كيسا لغا اقبلي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون haddii aadan garanayn axkaamta waxaad weydiisaan dadka aqoonta u leh si ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin waafajiyo soon wanaagsan oo idin aqbalo dariiqa toddobaada waxay tahay qofka waa inuu go-aan gaaraa casiimo adag gaaraa aathaamtii iyo sayi-aadkii oo ku jiray sida kuwa ragga balwadda leh kuwa khamaarka dheela kuwa waqtiyadooda meel xun ku dayici jiray macsiyada daa'imi jiray waa inay bishan gaaraan haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala gaarsiiyo waa inay go-aan qaataan inay dembiyadii xumaatadii ka tagaan oo tooba saadiq oo jamiic dunub ila imaadaan waa inay ka dhex baxaan waxyaabihii xumaa dibna isan ugu laaban oo ballan qaadaan waayo bishaan waa bil tooba faman lam yatub fiiha famataa yatuub haddii uu bishan qofka tooba keeno waa gormo tooba keenaya ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun tooba keena mu'miniintii ilaahay subxaanahu wa tacaala tuu tooba keena dhammaantiin si aad u liibantaan dariiqa sideeda waxay tahay inuu qofka nafsadiisa u diyaariya ruuxdiisa si qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala u akhrin lahaa iyo kitaabkii rasaalooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala noo soo diray waa inuu mar walba qofka uu dhegaystaa waxyaabaha culammada ay duubeen maxaadarooyinka duruusta iyo fiqiga iyo axkaamta ku saabsan soomku axkaamtiisa ku saabsan si ay naftiisa ugu xasishaa daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada nafafkooda ayuu hufi jiray wuxuu u sheekeyn jiray fadaa'isha bishan ay leedahay siba aaqir yowmi shacbaan waxaa sugnaatay inuu nabigeena istaagay wacdiyey ku yidhi ja'akum shahru ramadaan waxaa idin marti oo idiin soo timid bishii barakaysan ee ramadaan dariiqa sagaalaad ay qofka muslimka inuu maro laga rabo waxay tahay liajli dacwa inuu dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu yeedhaa oo masaajidadii magaalada ama xaafadaha ku yaala la buuxiyaa sida loo soo xaadirin lahaa dadka oo salaadaadkii taraawiixdii awqaadaadkooda dadka dhan cibaado loogu camiri lahaa dadka ducaadda waa inay arrinkaa u istaagaan oo weliba kitaabooyin iyo rasaalooyin oo wacdi iyo waciid ah ama fiqi wax laga baranayo ramadaanka ku saabsan waa inay dadka baraan salaada iyo soomka iyo qaabka ugu ansixlaan u sheegaan xaafadahan laga abaabulaa si dacwada ay u laasintaa waxaa ka mid a la rabaa inuu qofka hadiyaad la dhiibo waa in dadka la afuriyaa dadka sooman haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku gaarsiiyo
dadka Soomaaliya ka qaniimaysataa timirtooda iyo biyaha iyo wadooyin kale la istaagaa dadka la gaarsiiyaa waxa kale looga faa'iideysanayaa in dadka fuqarada la xasuusiyo dadka guryahooda fuqarada iyo masaakiinta ah in la xasuusiyo wax loo geeyaa iyo sadaqaadka iyo zakawaadka bisha aad loo badiyaa dariiqa toonaad qofka muslimka ugu faa'iideysanayo waa inuu Ramadaan soo qaabilaa weliba ku qaabilaa warqad cad oo aad u iftiimayso warqad cad markaan ku leeyahay waxay tahay waxyaabihii hore xumaatada oo dhan duuduub oo iska tuur hadda ka bacdi waxa u diyaar garowdaa acmaal saalixaad waayo bishaan habeenkeedii iyo maalinkeedii